isbitaalka weyn ee Qardho mujadin gabadhan yaa yaqaana shay أولاً قبل فيديو اللي كينا أيوة ninkaas waa ninka ay wax la samaynayso ninkaas way tiri maarta waa agaasimihii isbitaalka Qardho konton gabdhood ayuu video ka duubay galma ah waa konton gabdhood ayuu video ka duubay oo galma ah tan ka mid konton gabdhood ayuu video galma ah ka duubay ilaah baa idinku dhashay ka warramo okay aan idin akhriyo marka okay سمعت شو تبيتش كأخرني يا halka ay Soomaaliya maraysa in sheega dhigista شو انت كأخرني يا حلور 1 minute okay waxay leeyihiin Puntland gabar caafimaad qabta kuma harin kala shaki iyo kala carar baa ka jira kadib markii konta gabdhood ka badan muuqaaladooda la faafiyey waa Puntland konton gabdhood oo caana ayaa muuqaaladooda la faafiyey Puntland gabar caafimaad qabta kuma harin kala shaki iyo kala carar baa ka jira kadib markii konta gabdhood ka badan muuqaaladooda la faafiyey saddex gabdhahan waxay ka mid yihiin gabdho victim ah dhibana ah saddex gabdhood oo soo bandhigay oo agaasimaha isbitaalka Qardho jaamac karuur idab iyo nin kale aragwada hanad ee lagu magacaabo hanad ay soo dhigeen telegramka hadaad Qardho ku qorto 100 muuqaal oo galma ah oo reeqadaha ka soo baxay waxaasna nasiib darra ayuu Rashid Cali waxaasi oo dhibo oo jiro inuu aysan jirin hal wadaad iyo sheekh ka hadlay tacadiga lagu kacay gabdhaha Soomaaliyeed daahir waxaan ku weydiinaa gabadhan inuu ninkan dhibaatay ma la xaqiijiyey dalku ka dhoofo konta gabdhood ka duubay telegramka saas waayba may ninka gabadha video ka duubay ninkan miya ha inna lillahi wa inna ilayna raaji'uun ninka sunnada ka muuqata okay daga soo wasiirku xiyaan waa ogaday laba gabdhood yar inuu kufsaday farxan faasho walkii in habeen sida loo cunay la dilo ogta midkiis banaanka la soo dhigay isku linkiga aan Said Ali ku qora Facebook arka ama Telegram ku ku qortaan Qardho waxa soo baxaya waxa oo dhan ba soo baxaya gabdhihi Qardho dhan ba soo baxaya bal ilaah baa ku dhaalay ku qora hay bal ninka saa quruxid bal inuu naag xooga baahday fiiri waxaan waa sik waa mental problem runta ani ma hubo waa ku eedeysan yahay ma hubo inuu asaga yahay waa lagu eedeeyay asaga loo soo qoray inuu kufsigan geysan asaga oo soo xaduubin waxa kale lagu leeyahay gabdhaha ayaa waxay noqonayaan bay qarso
wiil buntland joogo oo la fuulay ma jira wiilasha buntland oo la fuulay ilmaha yarna la fuulaya buntland bal hadda Sayid Cali ku qora Sayid Cali ku qora سوق انت كفينا انا هاي سوق انسي واك ارك واك فير قبلها لكم ستانا كمل قبلها صادق التليجرام تنا كمل فير او تن هوسا كمل او تاكلا كمل اجا سمع سبتاك اساس سبي فير فيريا بل فيريا هل قبل او عانا مهري ويلا شاكدنا ويلا سؤال باباشي نينكا انت سنيا صادقة ساوارتي فيسبوكيس نينكا هو عانسنا بلا صادقة شو عن سيه سعادر داير هل كان المياه بسواني من بدون وحسن سمينايو سبحان الله ما waxaan fahmay isbitaalka ma la isku kufsadaa dawo ma la siiyaa xaqal danot waxba jar buntland waxa umali waxa inay qadarasiin saa macquul ma haba hadda gabadhan xijaab gaduuda qof la kufsaday ma weekend qof istiina weekend laga yaabaa inay ilaaba nago waxba jir waxba lagu xiriiriyay kulli si istiin weed xijaab gaduuda Facebook la wareejinayay alla xijaab laakiin ila saas say dadku uga hadli laayay waxaas ilmaha soo lagu sameeyay إنا لله وإنا إليه راجعون لا عبت أستر روارة تلي سودو إنا لله نيو dadka meesha jooga ama dadka kale ka qooq badan yihiin daahiro way abana anaga ninkii buntland ugu caansanay calaamada verification oo saaran wali ugu weynaa buntland wuxuu soo qoraaray فير ما هو صقر سيد علي سوق ربط لك قبل عاف ما ضبطكم هرين كان على كنت قبل رضع بالك وعيرت oo maxaa gabar ah wiilkii farxaan la dhashtay iyo wiilashii kale iyo aawe meeqa wiil aan arintooda aragnay وراني كان وريه صح ميا وحو كسو قره laba nin ayaa gabdhaha ka duubay muuqaalo ayagoo dash waxa Soomaaliga iska qurxiyo wariyaha laftirkiisa ma fadhi wariye sax ma والله انك ما جرتك وين وين اعوذ بالله من الشيطان هاي حتى رك horta daahiro arintan waa soo noqnoqotay kufsiga gabdhaha iyo wiilasha Puntland de maamulkana waxba kama qabanayo waa ogeed farxaan walaalkiis waa la kufsaday waa la dilay wiil kale asna jiray oo maxaa ku yiraahdaa ma dhibaan ahay oo la kufsaday dhibaatada gabdha yar yar oo saqiiraayo la kufsaday marka dhibaatada way soo badbadatay dadka meesha joogeen waa inay wax ka qabtaan maamulka meeshii ka dhisan dawladda federaalka joogto odayaal dhaqameedkiya joogo boqoradiya jooga soldaamintii baa joogo marka arintan daahiro ani ma garanayo ma dadka raali baa looga yahay dadka ficilada xun sameeyo waa wax aad meesha ugu soo noqnoqday marka ani waxa dhihi lahay in maaragtay reer Puntland inay isku noqdaan oo arintan xal la keeno sababtoo ah wiilashii yar yaray oo la kufsana waa la dilayaa gabdhihii waa kuwana marka meesha loo socdo ma garanayno aniga hadalkaygu kulay la gamba maayo qabiil iyo qolana ku ataagi maayo laakiin de cadaaladda baa u hadlaya
gabdhahaana xuquuqdooda hala raadiyo dee ninkii dhakhtarka ahaa iyo nin wax bartay iyo nin walbaba haddii uu falkan xun uu ku dhaqmayo walaahi waa wax aad loogu xun yahay walaal agshay adi maxay kula tahay niyo ani waxaan kaaga jawaabaa taas dadku reer Puntland dadka kama qooq badnay meesha malaaya lagu quracdaa malaaya lagu qadayaa malaaya lagu cashayaa resultigan wuxuu noqonaa qofkii nabad wax ku yeeli waayo in la fogo mafad marka dhawmada waxaa keenaysa malaayga badan marka malaaygan waxaan ku baaqlayn xogaa la iska yareeyo hilibka loo bato malaaygan lagu quracana lagu qadaynayo hor oo bixinaa halka maalin la cunaa wareernaa شيء ورنتا إن هذا الملايقة dareenka saa'id waaye qofka been lama sheegayo marka malaayga dadna ma yaqaanin ma ogtahay malaayga hadii la cuno ana tijaabi ma ogtahay waa iska joojiya loo yeero aawe qayaartii reer Puntland loo yeero dhalinyarada reer Puntland ee waxgaradka ee ma aragtay arrimahan ka hadli kara loo yeero qolka ha yimaadaan arrintan waa soo noqotay wax qurux badan ma boqorada samirka maqlay والله هذا هو ملايقة raacsanahay ma fahamtay malaayga waa ku raacsanahay hadda kadib ما halka maal fiiri aniga halka maal aan malaay ku qadi fiiri maqlay subaxdii aan bilaabay ana halka maal aan malaay fiiri aan bilaabay wallahi billah xaal kala iska malaay ana halka maal aan ku qadiyo fiiri maalinka ku qadiyo marqiisa xataa waa caba laakiin maalinka ku xigto iska soo maafad muumino ahmed wareera ku furmaa dikal qofka alay shahadasho duu ka diido horta shayow adaa ku watay horta waaga qurbaha ku cusbay baa waxa bartay geed yar oo shrimp la yiraahdo ma fahamtay marka bartay niyahow wuu ila macaaday habeen iyo maalin waa iska cuni jiray ma fahamtay waa ku naqnaqsada ma fahamtay falkaana camala u qarxi gaar ma fahamtay markaas dad qof la soo bixinaa ka hor موالد وعيابه بدرو انت كشيغينا جير لكن فلكان عمله وقرح ما فهمت برجع weero horta been baa sheegaysa ana hadda ka hor $100 aan ku soo adeegta malaay hilib guduudan anoo ka cararay xanuunka lugaha iyo waxaas ma fahantay halkan riyo leeyahay riyo malaayga la dhahay ma fahantay malaayga macnaha wuu kale aniga shrimbiga cuni jiray ma fahantay alaabaha yar yar markino oo muruq ma aragtay أيقنا مليه أبو أنا وأسكت داي لكن والله بالله تلا والله فالكان عمله وقرح الربا ما فهمت هاي مركب ميلا وشاقي وعاكودا هاي نيو ساسا يقول عاد وعودا وحم كوشاقها أما قرح ذي أما لو قبته أو فالحون جيش التمية هاسكو أجمرين ودا يدو قريق لو جوجين ما فهمت aniga malaayga marka iska joojiyo xawgeed waxaan aaminsanaa jir qofna reeda ku qabo reeda la ma fad marka saa iskaga dhaafada xaaladii safe way marka malaayga hala yareeyo shay isku mid baan nahay adiga soo ma aan ana riyadaas ay wareegisay riyada waxaan isdii jiray mid xurlaan iyo maajigeeda laakiin marka jiri bismillaahir rahmaanir rahiim ambar riyadaas aan ku waasho waa iska daayay laakiin hadda ma joojis waa joojiyay gudana bilaa walaal tabarbu ma waaye مارك مركا ملاقي عند نيك صوب والله شيء وقفتان با وحي كادا دحينيسا علعليسا بولا وحيدي مر هore la siiyay ma fahamtay quduri yaa la qeyn ma fahamtay waari ismu boqorad samirka marka malaaqi cunto nin kasto kala qurxanaa soo riyo niyo nag wala nag wala markay bax warkeed ka baxa عاش مع سلام نبدي ويا فاطمه نسودو فاطمه ملاي مسكو دادي شيك سلامي ورسته ملاي يا كمعان ابيات والله لكن قبلاس والله لك يعني ارن سيريوس قبلاس واحد مسمي روان سلام يا مدحدن على أرواحنا داهر مكوك أنا كيس كان أرنتها كوكسي داهر وهري وقصة صاحب كيس كيكل وحيدي من صدر لا ينط غيدمن وقاضية هاي وسور هذه ناس داهر وقصة على رأيه يا أنت أرنتها وصول على تديجان هان مقرت هاي
marka anu arrintan in Soomaalnimo lagu istaago gabar kasta Soomaaliyeed sharafteeda la ilaaliyo aan cidna loo fiirin qabiilna loo fiirinin la oran reer baa laga hadlayaa ayaan soo dhaweynayaa ma garad waayo marka arrintaas madax walaa mijo kufsigan oo maalmaha soo laalaabanaya Telegramka meel kasta dhigay wax la qarin karo malahan wiil iyo gabar wakiil kufsadaa waa laga hadlayaa ma garad haye waana arrin aan soo dhaweynayo aan kugu raacsan saaxiib hore u soco waana u hadlaynaa xuquuqda meel kasta aan joogno wixii Puntland ka dhacay meel kastaba daahirow gabadhii oo hoola qaasimka ahayd ma xasuustaa cunuga xanuunsan haysat ha oo maalin dhaweyd qolka daahirow ka hadluu yiri safar baan ku maqnaa laakiin haye daahirow ninka cadeeyay safar ku maqnaa laakiin wax laga rumaysan kara ma waa in baaritaan iyo dabagal lagu sameeyaa kulley codadkiisii iyo wax walbana waa la soo sheergareeyay marka nin walbana gabar waa asal wuxuu dhahay kan agaasimaha isbitaalka wuxuu dhahay anima samayn moodam soo sameeyey waddanka waa ka maqnaabi waxaan ku jiray safar dibadda ah waa arrin waddanku ka maqnaay marka kulley dee hadda ma balan garan karno laakiin more investigation iyo more proof waa loo baahan yahay in la sameeyo